haaruun macruuf ayaa inoo haya qaybtii shanaad ee taxanaha aasaaska al-shabaab. kadib hanaqaadkii muqaawamada iyo iskudubaridkii dagaalka gudaha hoggaanka maxkamadaha dibadda waxay saldhig ka dhigteen magaalada asmara ee dalka eritreya waxayna garowsadeen in la joogo wakhtigii la unki lahaa urur muqaawamada siiya hoggaan iyo difaac siyaasadeed bulshada caalamka dhexdeeda. hoggaamiyaashii maxkamadaha islaamka iyo xubno la magac baxay baarlamaanka xorta ah oo ka soo hor jeestay soo gelitaankii ciidamada etoobiya ee soomaaliya ayaa bishii sebteembar 14keedii 2007 kaga dhawaaqay magaalada asmara aasaaskii isbahaysiga dib u xoraynta soomaaliya ARS. xildhibaan maxamed aweys waxa uu ka mid ahaa xubnihii maxaakimta ee ku sugnaa asmara. marka xasan daahir iyo sheekh shariif markaas khilaaf kama jirin, laakiin qoladan yararka ayaa waxay bilaabeen shirweyne oo la qabanayo nimankii hadii la yiraahdo ARS ma jiraan, wax ARS la yiraahdo ma jiraan, maxaakimaan nahay macnaha wax kale maana. waxay rabeen inay meesha maadaama oo maxaakiimta gudoomiyaha suurada gudoomiyaha fulinta waa dhisnay mogta, waxay ogaadeen meeshaas siyaasad ahaan inay kasoo baxayn hadday ka qayb galaan. xilligan al-shabaab waxay ku gacan sayreen dhismaha isbahaysiga dib u xoraynta soomaaliya waxayna go'aansadeen inay iska fogeeyaan saraakiishii kale ee maxaakiimta ee ku sugnaa asmara oo ay u arkayeen inay u ordayaan kursi siyaasadeed balse aanay ahayn kuwa u go'an jihaadka keliya. al-shabaab waxay u arkayeen in dhismaha ururka ARS ay rumaynayso shakigii ay ka qabeen maxaakimta iyo muqaawamada ee ahaa inaysan jihaadka daacadu ahayn, ayna doonayaan in la afduubo masiirka dowlad islaami ah oo ka dhalata soomaaliya. intaasi kadibna al-shabaab waxay ku dhaqaaqeen 3 qorshe kuwaasi oo kale ahaa in la dedejiyo dhismaha ciidanka al-shabaab lana gaarsiiyo cududii uu lahaa ka hor dagaalka Itoobiya, in la casriyeeyo xirfadda dagaal ee shabaabka iyadoo door weyn la siinayo ajaanibta ku sugan Soomaaliya ee bahawadaagta ay yihiin al-shabaab, iyo in la kobciyo awoodda dhinaca warbaahinta ee ururka si guulaha laga gaaray ciidamada Itoobiya loogu nisbeeyo ururka al-shabaab. muddo gaaban gudaheedna al-shabaabku istiraatiijiyadaas 3 qaybood ka kooban waa ay ku guulaysteen. waxay kaloo kordhiyeen xirfadooda dhinaca teknolojiyada ee waafaqsan soo bandhigista caalamiga ee dagaalka Soomaaliya iyo ku xirka qadiyadda caalamiga ee ururka al-qaacida. muddo ka yar 2 sannadood gudahood al-shabaab waxay noqotay ururka ugu xooga badan Soomaaliya ciidan ahaan iyo istiraatiijiyad ahaan labadaba. sannadihii 2007 iyo 2008 al-shabaab waxay noqotay urur dhisan oo leh ciidan xoogan iyo hoggaan adag oo bahawadaagna la unkay jihaad caalamiga. waxaana labadaasi sano soo galay Soomaaliya ajaanibtii ugu tirada badnayd ee ka garab dagaalanta ururka al-shabaab oo tiradooda lagu qiyaasay 3,000 ilaa 5,000 oo qof. bishii May 1 2008 waxa ay Maraykanku ay gantaal ku dileen taliyihii guud ee ciidanka al-shabaab Aadan Xaashi Cayrow. bishii Janaayo 2009 waxaa Jabuuti dib u heshiisiin ku gaaray isbahaysigii dib u xoraynta Soomaaliya iyo dowladdii ku meel gaarka ahayd, waxaana al-shabaab ay isla markiiba ka soo horjeesatay heshiiska Jabuuti iyo dowladdii ka dhalatay. waxayna bilaabeen inay la dagaalamaan dowladda iyagoo si dhib yar uga qabsaday badi dalka marka laga reebo xaafado kooban oo ka tirsan magaalada Muqdisho. bishii Sebteembar 14keedii 2009 waxa ay Maraykanku dileen taliyihii ciidanka mutafajiriinta ama kuwa wax qarxiya kana tirsanaa ururka al-shabaab iyo weliba ururka al-qaacida, ninkaasi oo lagu magacaabi jiray Saalax Cali Nabhaan. bishii Juun ee sanadkan 7deedii ciidamada dowladda Soomaaliya waxay dileen hogaamiyihii al-qaacida ee bariga Afrika Fasuul Cabdulla Maxamed. hase yeeshee ururka al-shabaab awoodda ballaadhan ee ay dhisteen darteed iyo caalamiyeynta ay caalamiyeen dagaalkooda uma dhutin caqabad Eritrea, waxaana markaasi kadib loo gudbiyey xabsiga Guantanamo Bay ee dalka Kuuba. Ismaaciil Caraale waxaa laga sii daayay xabsiga Guantanamo Bay ku dhowaad 2 sano ka hor. xiriir aan kula sameeyay dhinaca emailkana waxa uu muujiyey inuu diidan yahay inuu isagu ka tirsanaa ururka al-shabaab. xubno hore uga tirsanaa al-shabaab waxay barnaamijkan u sheegeen in Abu Muxsin al-Ansaari ama Aadan Xaashi Cayrow uusan marna noqon amiirka al-shabaab balse uu ahaa taliyaha guud ee ciidamada al-shabaab. Sheekh Axmed Maxamed Islaam waxa uu muddo ku dhow sanad soo ahaa ku-xigeenka amiirka al-shabaab.
aniga salaaxudiin markay ahayn in cabdigodane labata systemkan gacanta ku hayo iskale aadanna waxaa loo adeegsanaya waxay ahayd ciidan ahaan iyo qaabkaas iyo in security ahaan qoys ahaan iyo siyaalo badan loogu qarsoonaado laakiin asal ahaan ninkaana barnaamijkan markii hore fikirku waxaa iska hayay markii xataa laftirka isaga baa hogaamiyaha ruuxiga waxaan gacanta ku haya ahaa fadhicii soo raacdana waxa weeyaan laba shaksi waxaan ka badnayn baa lahaa marka hogaan kale ma jiro waa isaga unba hogaanka markaa laftirkeeda lahaa si dadban waa gartay aadan xaashi cayrowna marna ma noqon amiirka al-shabaab maya marna ma noqonin awoodda ugu weyn ee al-shabaab waa mid hal meel laga maamulo go'aanka uu gaaro amiirka ayaa ah kan ugu muhiimsan oo aan dhinacna looga leexan amarka ka soo baxa amiirka al-shabaab waxaa fuliya golaha umarada ama laamo maamul oo hoos yimaada amiirka laguna magacaabo maktabadaha maamulka maktabadahaasina waxaa ka mid ah maktabadda siyaasadda iyo gobollada maktabadda dacwada maktabadda arrimaha dibadda maktabadda difaaca maktabadda maaliyadda maktabadda iclaamka ama warbaahinta iyo kuwo kale waxay al-shabaab leeyihiin 8 ilaa 9 maktabadood maktabad kastana waxaa maamula hogaamiye sare iyo la taliyayaashiisa si kale haddii loo dhigana maktabadaha ayaa ah golaha fulinta ama golaha wasiirada ee al-shabaab al-shabaab waxaa kaloo ay leedahay golo shuure kaasi oo ka kooban 52 xubnood hase yeeshee sababo dhinaca amniga ah dartood labada gole midkoodna uma kulmaan si joogto ah isku imaatinkooduna waa mid aad u kooban ama aan jirin taasina waxay sii xoojisay awoodda amiirka roland marshall waxa uu ka mid yahay khubarada sida weyn daraasadda ugu samaysay ururka al-shabaab Shabab has set up a leadership, shura, and then has set up a number of maktab. ururka al-shabaab waxa uu dhisay golo shuuro waxa kale uu dhisay xafiisyo dhowra oo sida wasaaradaha u shaqeeya sida ka arrimaha bulshada gaashaandhigga sirdoonka dacwadda brobagandada iyo wixii la mid ah marka waxaan rumaysanahay inay arrintani tahay baahin howlaha ururka ah waxaanse aan aad u caddayn sida go'aamada loo kala fuliyo si uu goluhu go'aamo u soo saaro waa inuu wada kulmaa golaha shuuraduna uma eka inuu marar badan iyo weliba xilliyo dhaadheer u kulmi karo waxaana la sheegayaa in tirada xubnaha shuuradu uu gaaray 52 xubnood halka uu markii hore ka ahaa 30 xubnood laakiin tiradu ma aha waxa ugu muhiimsan qaab dhismeedka ururka al-shabaab wax badan haddaba lagama yaqaano qaabka ay u howlgalaan ururka al-shabaab awaamiirtooduna ay u fusho laakiin talada al-shabaab ee ugu weyn waxaa iska leh amiirka al-shabaab axmed cabdi godane waxaa kaloo la sheegay inay awood weyn leeyihiin la taliyayaasha amiirka al-shabaab oo ugu horreeyo ninka uu sida weyn ugu kalsoon yahay ee lagu magacaabo cabdulaahi nadiir waxaa kaloo la taliyayaashiisa ka mid ah islamarkaana jaga muhiima ka haya xarakada al-shabaab ibraahim xaaji jaamac oo loo yaqaano ibraahim afqaan oo sidoo kale loo yaqaan sheekh abuubakar azaylici oo ku magacaaban madaxa maktabka maaliyadda ragga kale ee muhiimka ah waxaa ugu horreeya sheekh mukhtaar roobow cali abumasuur oo ku magacaaban ku-xigeenka amiirka xarakada al-shabaab iyo madaxa maktabka difaaca ragga kale ee soo shaac baxay 2 sane ee ugu dambaysay waxaa ka mid ah ninka aan wax badan laga aqoon ee lagu magacaabo sheekh xuseen cali fiido oo ku magacaaban madaxa siyaasadda iyo gobollada roland marshall ayaa sharaxaya qaabka iyo sida ay u howlgalaan madaxda al-shabaab You haven't called Hussein Ali Fido, you haven't called Sheikh Ali Dere, and many others as well are very important. ugu horrayntii waxaa jira hogaamiyayaal dhowra kuwaas oo doodda door weyn ka qaadan jiray waxaa jira xuseen cali fiidow waxaa jira sheekh cali dheere iyo kuwo kale oo badan oo muhiima marka weliba lagu daro kuwa warbaahintu ay aadka uga hadasho xubnaha kale ee ugu sarreeya golaha tanfiidka ama fulinta ee al-shabaab waxaa ka mid ah sheekh mukhtaar cusmaan abu muslim ama dulyadayn sheekh xasan maxamed abu ayman madaxa wilaayooyinka ama maamul goboleedyada sheekh fu'aad maxamed khalaf shongole madaxa arrimaha dacwada guddoomiye ku-xigeenkii hore ee al-shabaab sheekh axmed madoobe ayaa iga warramay qaabka ay maktabadaha al-shabaab u shaqeeyaan asal ahaan waxa ka shaqeeya horta waa ninkaas mas-uulka iyo nimankaas isaga mustashaariinta u ah oo aan 3 qof 4 qof ka badnayn dadkan kale oo dhan kulligood waxay ka yihiin ma jiro laakiin makaatibda leeyihin maktabka iclaamka maktabka jihaaska amniga maktabka jeyska mataqaanaa maaliga leeyihin xafiisyo badan oo kana laakiin dadkaas oo dhan kuma lahaa laakiin mustaqbalaa jirto iyadaasa taladu ka gooda barnaamijka iyagaa iskale cid kale oo wax badan kusii darsanaysa ma jirto inkastoo ay al-shabaab leeyihiin madax iyo rag ku magacaaban jagooyin kala duwan haddana sida uu iigu warramay sheekh cabdiraxmaan maxamuud faarax janaqow oo ka mid ahaa hoggaankii maxkamadaha qaab dhismeedka kasokow mar walba qasab ma aha in awaamiirtu ay u fusho sida loo kala sarreeyo
aniga horta maamulkooda si daqiiqa aniga ugama warqabo. waxyaabahaasi waa waxyaabo oo laga yaabo inay qofba in ka og yahay. dadku inay maaragtay yihiin dad ay taladu ka go'do iyo dad maaragtay ku magacaaban xafiisyo maamul oo maaragtay muxuu ahaa hawl fuliyayaal ah iyo dad maaragtay go-aanka buuxa uu ka go'o inay sidaa u kala qaybsan yihiin oo ay jiraan xitaa qaar masalan hadda awoodda uu masalan godana uu leeyahay oo kale markaan tusaale kusoo qaado waxay gaarsiisan tahay in oo maaragtay uu leeyahay jihaaz gaara oo isaga gaar ugu xiran oo isaga u dhisan oo cid la og ama maxay ahayto ka warqabta aysan jirin. isla mar ahaantaasna waxay doonaan fuliya oo maaragtay maxay ahayto aanan lana xiriireynin maamulkii meesha ka jira ama aan wargelinaynin iyaga hawshooda qabsada. masalan amniyaadka oo kale marka laga hadlaayo nin baa wilaayo meel heblo ku magacaaban oo waxaa laleeyahay wilaayo heblo waxaa waali ka ah hebelkaasi marka wixii meesha uu joogo ka dhacaya oo masalan qof baa waxaa lagu xukumayaa dil, qof baa waxaa lagu soo xukumayaa in xoolihiisa la qaato la dhaco, qof baa lagu xukumayaa in lasoo qabto iyo wixii lamid a. waxyaabahaas oo kale ninka waaliga ah ee gobolka ama meesha degmadaha xukuma haba looga sheegi maayo. nimankan way imanayaan cid taqaana iyadoon la arag, shaqada ay rabaan bay fushanayaan, cid la warrami kartaana ma jirto, isagay toos ugu xiran yihiin. marka taa micnaheedu waxa weeye qof waxaa jira madad waxaa jira go-aanku iyaga ka go-o haddii ay maaragtay khaldamaanna cid ku qabsan kartaa aysan jirin. waxaa iyaguna jira xubno caan ah oo aan ka mid ahayn guddiga fulinta ama golaha maktabka ee maamulka haya labadaba. waxaana ka mid ah sheekh xasan daahir aweys oo dhowaan isagu ku biiray ururka al-shabaab balse aan isagu waxila u haynin ururka, inkastoo uu ku jiro golaha shuurada ee la ballaadhiyey markii xisbulislaam ay ku biireen ururka al-shabaab lagana dhigay 52 xubnood. lama garanayo haddaba in sheekh xasan uu isagu taasi go'aansaday iyo in ururku aysan ku qabin kalsooni buuxda. sheekh cabdiraxmaan janaqow ayaa doorka sheekh xasan daahir aweys ee al-shabaab dhexdeeda sidan ku sifeeyey. sheekhu waqtiyadii ugu dambeysay ilaa yoomkeenan aan joogno wadooyin aada u ciriiriya ayuu galay oo maray. markii hadda u dambeysayna asiga ma jeclayn iyo ogaantayba intaan ku aqiinay ma jeclayn inuu ogolayn oo meel bay fadhiisiiyeen. waxay bura u siiyeen haddaad abaal ku qabto noolow annagu hadda naftaada ma rabne. marka wax nashaad ama dhaqdhaqaaq oo ay isaga u ogol yihiin ma jiro. sheekh xasan daahir aweys ma aha markii ugu horraysay ee uu ka muuqan waayo safka hore ee hoggaanka ururada, isagoo sidoo kale isbahaysigii dib u xoraynta ku gaabsaday golaha dhexe ee ururka sida uu haddaba ugu jiro golaha shuurada ee al-shabaab. waxaase uu dhinaca kala qoraa buugaag, waraaqo iyo maqaalo difaacaya jihaadka iyo maqaamka islaamka ee caalamka. waxaa kaloo xubnaha aan xilka ka dhaxaynin al-shabaab ka mid ah sheekh xasan cabdulaahi xirsi sheekh xasan turki, inkastoo isaga laftiisa uu ku jiro golaha shuurada. waxaa iyaguna jira xubno saraakiil sare ka ahaa al-shabaab iyo maxaakiimta islaamiga oo ururka al-shabaab ay ka shakiyeen, sidaas darteedna si ulakaca looga fogeeyey maamulka.